waxaan aad u jeclaaday dalka Soomaaliya iyo dadkiisaba. Sidan waxaa yidhi Michael oo ahaa 36 jir, dhakhtar indhaha ah, kaasoo uu soo diray Soomaaliya dalka Jarmalku, gaar ahaan hay'ad fidisa diinta Masiixiyadda. isagoo mashruuciisu ahaa in la biiqin bilaasha. Mashruucan oo uu fulinayo 1978 waxayna ahayd markii ugu horreysay oo uu Soomaaliya yimid, gaar ahaan magaalada Afgooye. waxayna isfahmeen dadka Soomaaliyeed si dareen ahaana, balse waxay ku kala duwanaayeen dhanka luuqadda. haddaba muddadii uu halkaa joogay Michael, amarka Ilaahay dad badan ayuu indhaha u fiiqay. taasina waxay sababtay in Soomaalidu aad u jeclaadaan, aadna u ixtiraamaan, iyagana ku talagalkooda ayay ahayd inay helaan jacaylka intaa le'eg si ay ugu fududaato hawsha gaalaysiintu. haddaba jacaylka ay dadku u qabeen Michael ayaa wuxuu iloosiyey shaqadii loo soo diray, taasoo ahayd gaalaysiinta. shakhsi ahaan wuxuu ahaa nin furfuran, hase ahaatee 5 bilood markii uu joogay ayaa lagu wargeliyey inuu isu diyaariyey safar dibadda ah, gaar ahaan Ingiriiska. haddaba wuxuu tegay Ingiriiska bil kadibna wuxuu aaday waddankiisii. ugu dambeynna waxaa loo diray Tansaaniya, se isaga waxaa la yaab ku noqotay sababta Soomaaliya looga bedelay. ayaana warku ugu daaline 5 bilood kadib ayaa loo soo diray warqad farxad gelisay, taasoo loogu sheegay inuu Soomaaliya dib ugu laabanayo. markuu yimidna siduu filayay waxaa loo soo dhoweeyey si diran, isagoo oo ka hadlaya soo dhoweyntiina wuxuu yidhi, haddaanan ka badbaadinaynin. Soomaalidu farxadda wejigooda ka muuqatay waxay u dhigantay qof indha la'aan ah oo indhihiisii loo fiiqay. sidii uu ugu farxi lahaa ay ugu faraxsanaayeen imaatikayga. dadkii soo dhoweeyey waxaa ka mid ahaa saaxiibkii Maxamed, kaas oo ku marti qaaday gurigooda. haddaba Maxamed aabihii oo luuqadda Ingiriiska si fiican ugu hadla ayaa hadalladiisu ay soo jiiteen Michael. haddaba Michael fursad ayaa halkaa uga muuqda, wuxuuna istusay inuu odayga hanto kadibna gaalaysiiyo, sidaana uu ugu noqdo furihii uu Soomaaliya ka geli lahaa. wuxuuna goostay inuu odayga kala hadlo Injiilka iyo waxa ku qoran. odaygii ayaa kaga hormaray oo ku yidhi, isagoo gacanta ku haya kitaabka Quraanka, ma taqaanaa kitaabkan? balse Michael ma jawaabin, waayo wuxuu doonayay ayaa lagala hormaray. odaygii halkaa kuma hadhine wuxuu ku yidhi, Injiilka iyo Quraankaba waxaad doontay iga weydii. Michael, xagee ku baratay waxa Injiilka ku qoran? odaygii dhammaan kutubta wixii ku qornaa Ilaahay Quraanka ayuu noogu sheegay. cajiib. booqashadaas halkaas ayay ku dhammaatay. Michael wuxuu ku laabtay shaqadiisii, balse wuxuu aad isugu hawlayay inuu hanto odayga maskaxdiisa, isagoo akhriyay qoraallo badan oo ku saabsan sida ugu fudud ee loo fidiyo diinta Masiixiyadda. wuxuuna baadigoob u galay siduu odayga mar kale ula kulmi lahaa, isagoo raba arrinkaana saaxiibkii Maxamed inuu ka codsado inuu aabihii la kulansiiyo. ayaa Maxamed mar kale casuumay. Ilaahay amarkii wuxuuna la kulmay Maxamed aabihii. markay isa salaameen, odayga ayaa su'aasha kagu horreeyey. wuu ku yidhi, ay tahay shaqadaadu? Michael, waxaan ahay dhakhtar. odaygii wuxuu yidhi, ma ogtahay in Quraanku si cad u kala dhigdhigaya abuurka aadanaha, marxaladaha koritaanka iyo isbedelada nololeed ee ku dhaca ubadka ay ku jiraan uurka hooyadood? Michael wuxuu yidhi, sidee ayuu u kala dhigdhigay Quraanku? dabadeed odaygii si cad u kala dhigdhigan ayuu ugu sharaxay dhammaan arrimahaas oo dhan. Michael oo arrinkaas soo koobiyeyna wuxuu yidhi, anigu hore ayaan u dhigtay dhammaan arrimaha oo dhan, balse waxaan la yaabay kitaabka 1400 sannadood da'diisu ka weytahay sida fiican ee uu arrinkan u sharaxayo, iyo weliba waxyaabaha aanan dhigan ee aan ka faa'iiday. Michael waxaasoo dhan isagoo arkay, haddana ma ahayn mid qalbigiisu dilco. wuxuuna ku sii dhagaadkaa hadafkiisii ahaa inuu odayga gaalaysiiyo. wuxuuna mar kale jeclaystay inuu la kulmo odayga, isaga oo ay marka ka go'an tahay inuu weerarku isagu bilaabo, balse laguma simin. Maxamed ayaa dhahay, aabbahay wuxuu rabaa inuu si joogto ah kula kulmo. markii ay kulmayna, Michael hadalka soo koobaya wuxuu yidhi, halkii aan rabay inaan anigu wax soo jiito, anigii baa la soo jiitay. waxaanay aajib gelisay aqoonta odayga iyo ixtiraamkiisa iyo hadal aqoontiisa iyo sida diinta Islaamka u tahay mid dhamaystiran. kulammadii 4 iyo 5aadba waxaan ahaa mid la sii jiidanayo, arrinkaana ku faraxsan. hase ahaatee kooxdoodii waxay ahaayeen u dabagal igu haya. muddo yar kadibna Maxamed iyo reerkoodii way guureen. anigana waxaa dowladdeeda Jarmalku igu wargelisay inaan xerada dhaafin. ugu dambeyn waxaan imi magaaladii ay Maxamed iyo reerkooda u soo guureen. anigoo dhuumanaya habeen ayaan la kulmay, laakiin arrinkaas wuxuu soo dedejiyey in la ii bedelo Nairobi, weliba la igu wargeliyo inaanan mar dambe Soomaaliya ku laaban doonin. hase ahaatee waxaa maankayga ku soo laabanayay hadalladii uu Maxamed aabihii dhihi jiray. waxaana go'aansaday inaan muslim noqdo. waanka kadib dalkayga Jarmalka ayaan warqad u qoray una sheegay inaan islaamayo, balse waxay iga goostay qarash. si aan Soomaaliya u aadana waxaan iibiyey dhammaan dharkaygii iyo wixii anagaba haystay. alxamdulillah waan tegey Soomaaliya, waxaana u tegey qoyska aan isku wacnayn. soo dhoweyn kadibna waxaan dhigta u saaray odaygii, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. intaa kadib waa la soo dhoweeyey, waxaana bilaabay barashada Quraanka Kariimka iyo xifdintiisa. muddo kadibna waxaan dib u bilaabay mashruucaygii nafiiqista ah, anigoo markan Ilaahay dartii u qabanaya. arrinkaasina waxaa iga saaciday Cabdalla Nasiib
oo markaas madax u ahaa ururka raabidada islaamka oo aan Maka kula kulmay. Ilaahay baana mahadda iska leh kore iyo gadaalba. Saaxiib, haddaad qisada ka heshay fadlan like noo saar naguna soo biir. mahadsanid.